السلام عليكم وإن سلام يا أصحاب جنال كيغا كحيران مeel kasto aad joogtaan soo dhawaada klibkan maanta waxaan ku eegi doonaa waxaa jiray dabcan kilibyadii kuwan ka horeeyay aan soo duubay inta badan waxaan xooga ku saarayay sidaad ogeedeen social media marketing welibana ama dhinaca digital business wax loo yaqaano ayaan inta badan ku eegayay taas oo ah fursada kale ee waqti xaadirkan maanta ay ka faa'iideysan karaan dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka af Soomaaliga ku hadlo guud ahaan meel kasta oo ay joogaan maadaama barnaamijkan online uu yahay sideedaba waxa la yiraahdo digital marketingka ama digital businesska la yiraahdo sidaan idin sheegay waxay ku xiran tahay dhinaca teknolojiyada iyo internetka qofka inuu ugu yaraan wax ka yaqaano ama uu xiiseynayo uu u leeyahay waxa la yiraahdo hobby inuu u leeyahay marka waxaan aan dabcan kusoo qaatay dhowr qodob oo kamid ahaa ama dhowr qaybood oo kamid ahay Facebooka iyo sida dhinaca social media lacag looga sameeyo maanta waxaan ku eegi doonaa si guud waxaa jiro waxa la yiraahdo jago ama darajooyin ay kala leeyihiin qofka marka uu social media soo dhaxgalo suuqan online-ka ah ama digital marketing-ka ah uu soo dhaxgalo darajooyinka qofka uu ka gaari kara waxaan ka hadlay advertisement-iga Facebook waliba gaar ahaan Facebook group kooxda la isku yiraahdo oo ay kamid tahay Instagram-ka Facebook-ga WhatsApp-ka ay kamid yihiin sidoo kale qaybta Google group la isku yiraahdo oo iyadana YouTube-ka uu kamid yahay ayaan dabcan soo qaatay waxaan rabaa marka qofka rabo inuu ganacsi ka sameeyo qofka rabo inuu shaqo ka dhigto social media marketing ama digital business-ka inuu ka dhigto shaqo ka dhigto ama ganacsi ka dhigto ama dhaqaale badan ka sameeyo rabo roolka uu kaga aadi karo ama ilaan dadka isku mid ma ah qof walba muhiibo ayuu leeyahay marka qof walba muhiimadiis meesha ku jirta asaa garanaya laakiin waxaan soo qaadan doonaa maanta ilaa 4 qodob oo muhiim ah oo lagu sameyn karo business ama ganacsi ama shaqo laga dhigan kara social media marketing marka lagu guda jiro ama digital businesska marka lagu jiro qodobka koowaad waxa weeyaan qofka inuu ku shaqeeyo social media manager waxa la yiraahdo social media manager marka qofka uu noqonayo qofka waa in uu marka hore soo bartaa waxa uu ka noqonayo social media manager taasoo ah qaybaha social media uu ka kooban yahay qofka inuu bartaa platform kasta oo social media ah qaab gooni ayuu u shaqeeyaa tusaaladii aan soo qaato YouTube-ka waxa uu ku shaqeeyaa nidaam gooni ah ay u leeyahay inaad baratid YouTube-ka waxyaalaha sharci ah qofka siduu u sameyn karo waxa laga rabo in qofka uu video soo geliyo shuruudaha laga rabo qofka inuu si fiican YouTube-ka u bartaa Facebook markay noqoto qaybta Facebook ads ama advertisement-iga lagu sameynayo qofka inuu wax badan ka yaqaana markay noqoto linking dabcan qaybaha ay u kala baxaan oo dhan mar ayaan ka hadli doonaa waqti ay u baahan tahay linkedin markuu qofka qaadanayo waxaa loo baahan yahay inuu soo barto dhinaca iyo linkedin waxyaalaha looga shaqeeyo qofka marka social media manager-ka ah qaabka ku shaqeynaya waa sidee wuxuu ku shaqeynayaa kambaniyaasha waaweyn ee ganacsatada ah ayuu wuxuu u qaabilsanaanayaa ama uu u maareynaya social media iyo waxyaalaha xayeysiinta ah kambanigaas uu soo dhigayo oo dhan asaga u qaabilay sababtoo hadda kambaniyaal badan ayaa jiro oo qaato mar walba soo geliyo qof ku shaqeynaya social media manager ah oo ay u baahan yihiin runtii mushahar badan ayuu qaataa qofka markuu kambaniga u shaqeynayo uu soo barto sababtoo ah waxa uu kala hagayaa kambanigii qaybta linking ayuu isku xirayaa qoraal kasto cusub oo la soo saaro macluumaad kasto kambaniga uu soo saaro ayuu Facebook gelinaya wuxuu gelinayaa qaybaha kala duwan ee hadii video laga sameeyo video ka sameynaya hadii quotes laga sameeyo quotes ka sameeyo waxyaalahaas oo dhan ayuu u qaabilsan yahay waxa uu manage gareynaya dhammaan qaybtan IT-ga ku saabsan ee ah in social media kambanigaasi macluumaadkiisa laga helo oo dhan ayuu u qaabilaya marka social media manager qofka markuu ku shaqeynayo mushahar ayuu ku shaqeynayaa kambaniyaasha weyn u shaqeynaysaa lacag badan aad ka qaadanaysaa dad baa waxay ku shaqeeyaan $2,000 $5,000 $1,000 kuwa ugu yar $1,000 ay ka badan ay ku shaqeeyaan marka haddii qofku u barto laakiin waa in uu haystaa shahaado cadaynaysa social media marketing manager inaad noqon kartid haddii Facebook oo kale aan soo qaato Facebook waxay bixiyaan cashir hore ayaan kaga hadlay shahaado u dhiganto Facebook manager oo ah shahaado international ah sidoo kale marka ay noqoto YouTube-ka iyo Google-ha iyo iyagana way bixiyaan qofka marka social media manager noqonayo dhammaan waa inuu ka shaqeyn karo qaybaha kala duwan ads kasto ama app kasto uu ku rayn gareyn karo kambanigaasi
qodobka labaad oo ama darajada labaad waxay tahay social media digital businesska looga shaqaysan karo social media assistance. social media assistance wuxuu badanaa la shaqeeyaa social media managerka ayuu la shaqeeyaa, kambaniyaasha ayaana qaato waana la shaqaaleeyaa. qofkaasi wuxuu ka shaqeynayaa tusaale ahaan subaxa marka uu soo tooso waxa uu gelayaa kambanigaasi pagkiisa wixii cusub oo lasoo dhigaayo, instagramka waxa lasoo dhigaayo, youtubeka waxa lasoo dhigaayo, linkinka waxa lasoo dhigaayo, twitterka waxa lasoo dhigaayo iyo facebook waxa lasoo dhigaayo. intaas ayuu fiirinayaa, kadibna waxa uu soo dhigayaa maalintii inta saacadood ee adskaas ay soconayaan iyo wixii lamid ah ayuu ka shaqeynaya. waxa uuna la shaqeeyaa social media managerka ayuu la shaqeeya. sidoo kale social media assistant haddii aad tahay waa inaad haysataa aqoon kugu filan oo u dhiganto diploma ama aqoon shahaado cadaynayso inaad taqaano qeybaha kala duwan ee social mediaha. labadaasi marka waa qofka shaqaale ahaan u shaqeynayo oo kambaniyaasha la shaqeynayo oo la shaqaaleynayo. laakiin marka hore qofka isa soo diyaariyo wixii soo barto waana shaqooyinka ugu fiican maanta waqti xaadirkan digital businesska looga faa'iideysan karo marka aad doonayso inaad dhaqaalo badan samaysid. qaybta xigta waxaa waaye advertisement weeyaan, oo qaybta saddexaad ama jagada saddexaad oo darajo fiican laga gaari karo, dhaqaalo fiicanna qofka uu ku qaadan karo ama ku heli karo. qaybta advertisementiga marka loo soo laabto waxaa la yidhahdaa social media advertisement agency, qofka inuu sameysto. tusaale ahaan qof ayaa wuxuu ku fikiri inuu ka shaqeysto social mediaha gudihiisa si advertisement ugu sameeyo kambaniyaasha. kan marka social media manager wuu ka duunaanayaa, sidoo kale social media assistant wuu ka duunaanaya, shaqaale ayuu ahaa. laakiin adi shaqaale ma noqonaysid, kambani ayaad samaysanaysaa, kambanigaada magac ayaad u baxsanaysaa, adska ayaad u sameynaysaa. facebook oo kale qolada facebooka dhammaan kambaniyaasha facebook in aad loogu samey rabo ayaad aad ugu sameynaysaa. kambaniyaasha marka waxay ku siinayaan page role waxa la yidhaahdo, oo pagekooda page ka mid ah ayaa waxaad u qaabilsanaanaysaa ood usoo dhigaysaa xayisiinta ay rabaan oo kale. tusaale ahaan kambaniga waxaa jira ilkaha ama dhakhtarka ilkaha oo rabo in la ogeysiiyo ama dadka la gaarsiiyo in ilkaha dadka ay u hagaajiyaan, ilkaha u sameeyaan. hadda muqdisho kale dhantiisi badan ayaa ka jira. kuwaasoo kale marka waxaad u qaabili kartaa, waxaad u sameyn kartaa adiskoo kale xayeysiin ayaad u sameynaysaa, ilkihii iyo wixii aad soo qaadaysaa, sawirradii aad soo qaadaysaa, pagekooda ayaad usoo dhigaysaa ama pagekaada ayaad uga xayeysiinaysaa haddii page ay laheen. adiga marka farsamadii iyo ayaad qaabilaysaa, lacagtii iyo wixii iyaga iska bixinaya adiga farsamada baad lacag kaga qaadanaysaa. sidoo kale kambaniyaal badan ayaa sidaa uga shaqeyn kartaa oo badan oo cariga ka badan. laakiin waxaa loo baahan yahay marka hore inaad soo baratid qaybta adiga aad ku fiican tahay. haddii aad ku fiican tahay dhinaca facebook adski oo dhinaca advertisementiga inaad xooga saartid oo aad baratid. facebook iyo instagram waa isla shaqeeyaan. marka qofkan social media advertisementiga ah sidoo kale waxa uu sameyn karaa, uu baran karaa qaybta linkinka oo kale. linkinka sidaa idin sheegay kambaniyaasha waaweyn ee ganacsatada waaweyn ayaa inta badan ku shaqeysto, oo linkinka wuu ka duwan yahay in laska soo galo sawiro laska soo dhiga maaha, laakiin qaab ganacsi ayaa loo isticmaalaa. marka adiga kambanigaada ama agensigaada adiga aad leedahay waxay qaabilsan tahay cid kasta oo kusoo raadsato ama doonaysa in xayeysiin loo sameeyo ayaad xayeysiinta u sameynaysaa. kadibna haddii pagekaada ay rabaan inaad pagekaada usoo dhigto pagekaada usoo dhigaysaa. haddii kalena pageka iyaga ay leeyihiin ayaad page rolekaas uga shaqeynaysaa. tan marka agensiga adiga iskale adaa u madax banaan, mushahar ma qaadanaysid, laakiin halkii mar oo rankas aad u sameyso ayaad lacag ku qaadanaysaa. lacagtaas ayaana joogto mar walba. maxay ahayd wax aad u sameyso adiga aad ka qaadanayso. kambaniyaal badan ayaadna saa uga shaqeyn kartaa adiga oo madax banaan, waqtigaa rabtan shaqeynay. sidoo kale dhaqaalo badan ayaa lagu sameeyaa qaybtaasi. qodobka afraad ee ugu dambeeya ama roolka afraad isagana aan rabo inaan idinla wadaago waxa weeyaan waxaa la yidhahda social media monetization. social media monetizationka facebookana wuu leeyahay, sidoo kale youtubeka wuu leeyahay, qaybta linkinkana way leeyihiin. sidoo kale qaybtan waxa weeyaan agency uma baahnid inaad samaysid oo agency ma samaysanaysid, laakiin waxyaalaha adiga aad soo dhigtid, fideoyada aad samaysid, sawirada aad samaysid, qoraalada adiga aad samaysid ayaad soo dhigaysaa. isla markaana dadka ayaa ka helaya oo views dhaha. viewskaasi engagement waxa la dhaho ayaa jiro oo adiga aad ku helaysaa lacag. hore ayaan uga soo hadlay casharada kuwan ka horreey waad daawan kartaan youtubeka oo kale ama facebook oo kale. casharada kuwan ka horreey facebook ayaan kasoo hadlay. marka qaybtan monetizationka ah adiga haddii aad dad badan yeelato, followers badan aad heshid youtubekaada ama facebookaada, dad badanoo ku daawada la helo oo shuruudaha ay leeyihiin aad buuxisid,
waxay kusoo dhex dhiganayaan ama ay soo dhiganayaan wax kastoo aad soo gelisa xayeysiin kambaniyaasha sida Facebook oo kale instreamka qaybta instreamka ayuu Facebooka kusoo dhiganayaa sidoo kale kambaniyaasha kale brownka ayay kusoo dhex dhiganayaan taas marka Facebookana wuu leeyahay YouTubekana wuu leeyahay waxaa marka aad ka helaysaa ama aad ka sameyn kartaa dhaqaale badan saan idin sheegiba keli adiga klibka aad soo sameysay ay dadka ay daawadaan oo adigana kambaniyaashaasi ay kusoo dhex dhigtaan xayeysiinta ayaad marka dhaqaale badan ku sameynaysaa marka qaybtan social media monetizationka adiga kaagama baahna aqoon badan keli waxay kaaga baahanta sharciyada inaad fahantid aadna soo dhigi kartid ama aad talent u leedahay in aad adiga wax diyaarisid oo dadka ay daawadaan dadka ay jecel yihiin Facebookaada aad soo dhigtid ama YouTubekaada aad soo dhigtid ama waxa aad ku fiican tahay aad adiga muhibo u leedahay in mar walba dadka aad la qaybsatid dadka daawada like ay kuu saaraan sidoo kale ay kuu saaraan ay kuu share gareeyaan ama comment ay ka bixiyaan isla markaana klibkaas yar oo ay soo dhex dhiganayaan kambaniyaashaas ay lacag ku bixiyaan marka qaybtan waad madax bannaan tahay sidoo kale cid gooni wax kama filaysid ama cid gooni lacag kama filaysid waayo qaybta tan ka horeysay social media advertisementiga shirkadahaasi aad u shaqaysay ama shirkadaha aad xayeysiinta u samaysay aad lacag ka qaadanaysaa laakiin tan shirkad kale kuma xirnid mar haddii shuruudaha aad buuxisid oo ay ku ogolaadaan in shuruudahaasi aad buuxisay Facebooka ama YouTubeka lacagtaada ma xadidno inta aad adiga shaqaysay ay ku xirantahay maalinta aad 5 video soo geliso 5taada video inta ay daawato inta qof oo daawato inta fiis lacag ay kugu siinayaan waayo adiga ayaa shaqaysanaya waa lacag ka madax bannaan waa qaybtan idin sheegayay ilaa $7,000 ilaa $5,000 qofka uu bishii sameyn karo qaar baa maalintii ku xisaabtama $1,000 sameeyo marka ay shuruudaha buuxiyaan laakiin shuruudaha si lagu buuxiyay marka ugu horeysa waxay u baahan tahay qofkii inuu joogto daily wixii u soo geliyo in uu iska ilaaliyo waxyaalaha mamnuuca ka ah in lagu soo bandhigo maxay ahayd monetization marka la isticmaalayo inaad iska ilaalisid isla markaana dhaqaale badan ayaad ka sameyn kartaa marka rulekan intaanu rule ah haddii aad adigu isleedahay mid kamid ayaad ku shaqeyn kartaa waxaan ku leeyahay soo dhow social media marketingka ama digital business waxa loo yaqaano dhaqaale badan ayaa laga sameeyaa maanta xaaladda lagu jirana dadka iyo guryahooda jooga ay shaqaystaan way ka duwan tahay xaaladihii hore waayo coronavirus uu bilowday wixii ka dambeeyay inta badan dadka waxay u gudbeen ama kambaniyaasha hadda social media managerka oo kale marka la qaadanayo hadda magaalada aniga aan deganahay ama waddankaan deganahay maalin kasta waxaa lasoo geliyaa ad arkaysaa waxay u baahan yihiin kambaniyaasha social media manager qof oga noqda asoo guriga jooga u shaqeeya ay u baahan yihiin Sweden oo kale aad ugu badan runtii Sweden inta badan kambaniyaasha ganacsiga waxay u baahan yihiin qof online uga shaqeeya uma baahna inaad Sweden degan tahay adoo Soomaaliya joogtaad uga shaqeyn kartaa adoo Kenya joogaad uga shaqeyn kartaa kali lacagtaad ku heshiinaysaan online kaas ayaad uga shaqeynaysaa haddii aad baratid aadna ku fiican tahay social media managerkaasi sidoo kale social media assistantka kambaniyaal badan ayaa sidoo kale raadiyay sidaan arkay waxa ugu badan Mareykan oo kale qaaradda Yurub oo dhan inta badan aad ay u raadiyaan sidoo kale waxaa muhiim ah adiga inaad diyaarsan tahay marka hore isku day in aad qaadatid horta Facebook haddii aad qaadatid waa inaad soo diyaarisaa qaabka social mediaha aad uga shaqaysan lahayd Facebooka marka hore haddii aad gashid waxaad ka qaadanaysaa shahaado saan idin sheegay cashirkan cashir ka horeeya jiro ama cashir ka horeeyay oo aan toos ugu dhaxgalay qaybta aadiska iyo sida qofka uu imtixaan u sameyn karo kadibna imtixaanka marka uu cashirada qaato uu geli karo shahaadada ama certificate social media managerka uga qaadan karo haddii laakiin aad Soomaaliya degan tahay ama Kenya degan tahay ama wadamada Geeska Afrika aad degan tahay waa social media advertisement ku shaqeynay sidoo kale gurigaada aad joogtad ku shaqeyn kartaa kali wax laga rabo waxa weeye inaad internet haysatid isla markaana farsamadii aad taqaano oo aad heli karto computer dadka inaad u sameyn kartid waxyaalaha ay ka rabaan shirkadaha ama kambaniyaasha aad u sameynaysid qaybta advertisementiga aad u qaabilaysid ay ka rabaan waxaan idin leeyahay haddii aad ka hesheen videogan dabcan like saaro sidoo kale sii share gareeyo haddii aad janaalkayga ku cusubtana subscribe dheh si aad u heshid cashirada aan soo dhigo runtii waxaan xooga saarayaa isla markaana dadka aan doonayaa in ay ku baraarugaan in digital businesska online-ka ah caalamka maanta aad looga faa'iidaystay wadamada caalamka ama dhalinyarada da'yarta ah ay ka faa'iidaysteen idinkana waxaad ka mid tihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka af Soomaaliya ku hadlo waana ka faa'iidaysan kartaan cid idinka xigta ma laha social mediaha ama teknolojiyada maanta casriga ah oo ah
digital businesska cid kasta wuu u furan yahay keli waxay ku xirantahay dadaalkaada iyo sida adiga aad waqti u geliso iyo rabitaankaada ay ku xirantahay mar kale aadan idin salaamayaa waa xalwa cali asalaamu calaykum